بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaa maanta ka hadlaya suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Xuseen Xasan Cali Waraabe. waxaan doonayaa inaan ka jawaabo arrin maalin dhaweyd nin suldaani uu galigii horena kulmiye taageeray galigii dambena uu taageeray. waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin foolxumo ku ah dhaqanka iyo shacabka reer Soomaaliland. waxaan xal ka siinayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland. waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin foolxumo ku ah nin weyn inuu galig horena wax ku hadlay galigii dambena wax ku hadlo. intaa markaan ku dhaafo xaalka waxaan soo jeedinayaa oo maanta si buuxda u taageeraya xusbiga wadani in la garab istaago in taageero buuxda loo muujiyo in shacabka reer Soomaaliland iyagoon eegayn nin jeclaysi qabiil ay doortaan oo ay garab istaagaan oo cududooda iyo caqligoodaba ku biiriyaan si aynu u helno isbeddelka dhabta ah ee aynu bariyahanba rajaynaynay inaynu helno. markaa waxaan leeyahay dowladdii waxay ku tumatay iyo xusbigan iminka jooga xuquuqihii asaasiga ah oo ka mid ahayd xorriyatul qowlki oo ka mid tahay sixir bararkii oo waxba ka qaban weyday oo iyadu aynu odhan karno waxyaalaha abuuray bay ka mid tahay. waxay ku tumatay xorriyaddii saxaafadda, waxay ku tumatay hogaamintii waddanka ayay god ku riday. markaa waxaan leeyahay haddii aynu doonayno isbeddel dhaba inaynu keenno waa in la garab istaaga oo loo hiiliya xusbiga wadani si aynu xukuumaddan iyo xusbigan mushkuladaha fara badan dalkii ku keenay aynu u beddelno. markaa waxaan leeyahay dadka taageera xusbiga wadani oo garab istaaga oo cududdiina ku biiriya. intaasaan soo jeedin lahaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.